خضر أما خضر عليه السلام wuxuu alle siiyay cilmi iyo garaad uusan siin qof kale oo dunida soo maray waxa uu ahaa macallinkii nabiyada waxaana lagu xusay saddexda kitaab ee samaawiga ah inkasta oo badankeena aynu garanayno magaciisa maqalnayna sheekadiisa haddana ma jirto tafaasiil badan oo laga ogyahay ma wuxuu ahaa nabi mise rasuul qof caadi ah mise malag laga soo dejiyay samada waxaaba jira dad yiraahda oo aaminsan inuu nool yahay ilaa maantadan haddaba maxay tahay sirta dahsoon ee ku gadaaban qisada khadar calayhi salaam kumuu ahaa maxayse tahay xaqiiqdiisu daawadayaal ku soo dhawaada xalqadeena 14aad oo aynu kaga hadlayno khadar calayhi salaam halkaani waa gob media anigana waxaan ahay cali maxamed intaynaan bilaabin ka sheekaynta qisada khadar janaalka subscribe saar bogga facebookna follow dheh isirka iyo qofka uu yahay khadar calayhi salaam waxa ka jira khilaaf taariikhyahanada iyo culimada qaar ayaa sheega inuu yahay wiil uu dhalay nabi aadam calayhi salaam halka ay taariikhyahanada qaar yiraahdaan waa inuu dhalay qaabil awowna uu ahaa nabi aadam calayhi salaam halka kuwa kalena ay yiraahdaan waxa dhalay nabi haarum calayhi salaam waxaana keentay in lagu kala aragti duwanaado qofka uu yahay khudr iyo meesha uu ka soo jeedo xogta yar ee laga hayo taariikhdiisa quraanka ayaa lagaga xusay suurada al-kaaf gaar ahaan qisadiisa caanka ah ee dhexmartay isaga iyo nabi muuse calayhi salaam waxa dhacday in nabi muuse maalmaha kamid ah uu khudbadeeyay dadkiisii kadibna waxa dhacday mid kamid ah dadkii khudbada dhageysanayay uu weydiiyay nabi muuse su'aal ahayd ma jira qof ka aqoon badan markaasuu ugu jawaabay nabi muuse maya ma jiro kadibna alle subxaanahu wa ta'ala ayaa u waxyooday nabi muuse inuu jiro mid kamid ah adoomadiisa oo ku sugan meesha ay ku kulmaan labada badood oo ka aqoon iyo cilmi badan nabi muuse calayhi salaam ayaa u jahaystay halkii uu alle u tilmaamay si uu ula kulmo adoonkan ka aqoonta badan waxna uga barto way kulmeen nabi muuse iyo khadar kadibna nabi muuse ayaa ka dalbaday inuu raaco si uu wax uga barto khadar ayaa ogolaaday laakiin wuxuu shardi uga dhigay inuu raaco in uusan wax su'aal ah weydiin ilaa uu isagu u sheego wuu ogolaaday nabi muuse calayhi salaam kadibna waxa uu bilowday ayaankii aqoon kororsiga markii ugu horeysayba waxay raaceen doontan markii ay raacayeen wax lacag ah lagama qaadin kadibna waxa dhacday markii ay xoogaa socdeen oo khadar u geystay doontii dhaawac kana jabiyay alwaax kamid ah alwaaxyadii doonta ku xidhnaa nabi muuse ayaa iscelin waayay kadibna waxa uu weydiiyay waxay nagu qaadeen lacag la'aan maxaad u waxyeelaynaysaa doontooda markaasi ayuu ugu jawaabay ma awoodid inaad dul qaadatid inta aad ila socotid kadibna nabi muuse ayaa ka raali galiyay kuna yiri ha ii qaban waan ilaaway waxay sii wateen socdaalkoodii iyaga oo socda ayay arkeen caruur meel ciyaaraysa kadibna khadar ayaa dilay mid kamid ah caruurtaasi nabi muuse ayaa ku yiri ma waxaad dishay naf aan dambi geysan oo naf kale aan goyn waxaad la timi wax aan fiicnayn khadar ayaa ugu jawaabay miyaanan ka oran ma dul qaadan kartid inta aad ila socotid weli safarkoodii ayay sii wateen kadibna waxay yimaadeen tuulo ay degan yihiin dad aan martida soo dhaweyn wax qadarin ahna aanu muujinayn inta ay ku sugnaayeen tuuladii ayuu arkay khadar darbi soo liicaya oo dumi raba kadibna wuxuu ku sameeyay dib u hagaajin si uusan u dumin kadibna nabi muuse oo yaaban ayaa ku yiri maxaad ugu hagaajinaysaa dadkan meeshan ay degan yihiin ee aan martisoonin qadarinna noo samayn khadar ayaa kadibna wuxuu ku yiri nabi muuse calayhi salaam halkan ayaynu ku kala haraynaa oo isla sii socon mayno waana kaaga jawaabaya waxyaalihii aan sameeyay ee aad sugi kari weyday inta aan kaaga sheegayo sababta aan u sameeyay doontii aan badda wax ku soo gaarsiiyey waxaa iska lahaa masaakiin ku xamaasha waxaana ka dambeeya boqor daalim ah oo doon kasta oo cusub xoog iyo khasab ku qaadanaya haddaba si uusan uga qaadan ayaan dhaawac u gaarsiiyey doontaasi haddaan u imaado ilmihii aan dilay waxaan arkay in waalidkiisu ay yihiin dad wanaagsan oo alle ka cabsi badan isaguna uu mustaqbalka noqon doono mid ku wareeriyo kufri iyo gaalnimo sidaas ayaana u dilay gidaarkii soo liicayay ee aan dhisay isagana waxaa lahaa laba ilmi oo agoon ah waxaana ku hoos duugan dahab ay dhaxal u leeyihiin oo uga tegay aabbahood haddii uu darbigu dumana dadkii deganaa magaalada ayaa xoogaya carruurta agoonta ah oo dahabkooda qaadanaya sidaasi ayaana ugu dhisay si uu dahabkoodu ugu dhowrsanaado oo ay ula soo baxaan marka ay weynaadaan kadib markii uu saddexdii arrimood ka jaahil bixiyey ayay meeshii ku kala tageen nabi muuse calayhi salaam iyo khadar dadyowga qaar ayaa sheega in khadar ama khudur inuu ilaa xilliga nool yahay oo uusan dhiman laakiin culimada badankood ayaa isku raacsan in hadalkaas uusan waxba ka jirin khadar ayaa sidoo kale dadka haysta diimaha kale iyaguna aaminsan jiritaankiisa tusaale ahaan kirishtaanka ayaa u yaqaana qidis margares waxayna aaminsan yihiin inuu ka soo baxay magaalada Beirut si uu gabar deganeed halkaasi u badbaadiyo waxaana ku xusan kitaabadooda in la dilay bishii afraad sanadkii 303 ee sanadkii miilaadiga kadib markii uu qaatay diinta Kiristaanka waa sida ay aaminsan yihiin kuna xusan kutubtooda halka Yahuuduna
qisada khadar ee ku xusan kutubtooda ay in badan isaga mid yihiin qisada ku xusan qur-aanka, laakiin magacyada labada qof ee ay qisadu dhex martay ayay yuhuuddu aaminsan yihiin inay kala ahaayeen xaaqaam la oran jiray yuushca binu laawi iyo ilyaas. xaaqaam waxaa loo yaqaanaa wadaad marka laga hadlayo diinta yuhuudda. isku soo duuduubo, qisada khadar ama khudur ayaa ah mid siro badan ay ku gaadaaman yihiin, aysanna jirin cid garanaysa qisadiisa oo dhammaystiran. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما.